السلام عليكم. maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa mid ka mid ah hogaamiyayaashii ugu saamaynta badnaa qarnigii 20aad, hogaamiyihii kacdoonkii Cuba, saaxiibkii halgamaagii caanka ka ahaa Latin America iyo qaybo ka mid ah Afrika ee Ernesto Che Guevara. waxa ay taariikhdu u tiirisaa in uu ahaa hogaamiyihii isku dayadii ugu badnaa ee dil loo maleegay, kuwaas oo kor u dhaafay ilaa 600 oo qorshe oo la rabay dhammaantood in lagu qaarijiyo. magaciisa oo buuxa waa Fidel Alejandro Castro Ruz. waxaa loo soo gaabiyaa oo uu caan ku yahay Fidel Castro. waxa uu dhashay sanadkii 1926 bishiisii 8aad. waxa uu ku dhashay magaalo la yiraahdo Las Managas. aabihii waxaa la oran jiray Angel Castro, waxa uuna ahaa beeraley. Fidel Castro waxa uu ku dhashay gobol sabool ah, kamay jirin waxbarasho, adeeg caafimaad iyo shaqo. Fidel Castro waxa uu noqday shakhsi nasiib leh. aabihii waxa uu ka soo taariibay dalka Spain sanadkii 1905. wax aqoon ah muu lahayn, xitaa magaciisa muu qori karin, laakiin dadaal badan kadib waxa uu noqday nin hanti leh. Fidel Castro waxaa dugsiga lagu daray isaga oo jira 4 sano. yaraantiisii waxa uu ahaa arday dagaal badan. sanadkii 1942 ayuu galay dugsi sare oo lagu magacaabi jiray Jesuit School, kuna yaala caasimadda waddanka Cuba ee Havana. maadaama uu ku soo barbaaray beeraley rabshad badan, waxaa loogu yeeri jiray ardaygii jabhadka ahaa. kadib waxa uu u gudbay jaamacad, waxa uuna ka dhiganayay sharciga. sanadkii 1945 oo ahayd waqtigii uu jaamacadda ku jiray, waxa uu aad ugu doodi jiray siyaasadda. sanadkii 1947 waxa uu ku biiray koox ka koobnayd 1200 oo hubaysan, kuwaasi oo ku kacsanaa nidaamka dalka ka jiray. laakiin markii dambe wuu ka baxay. sanadkii xigay 1948 ayuu guursaday Marta oo ahayd gabar ardayd ah oo la dhigan jirtay jaamacadda Havana. sanadkii xigay 1949 waxa uu dhashay ilmihii ugu horeeyay oo loo bixiyay Fidelito Castro, kaasi oo markii dambe noqday dilaa arxan daran. isla sanadkii xigay 1950 ayuu ka qalin jabiyay jaamacaddii Havana. kadib waxa uu bilaabay inuu taageero dadka masaakiinta ah ee dalka Cuba. dawladdii waqtigaasi dalka ka talinaysay ayaa noqotay mid musuqmaasuq badan uu hareeyay, waxaana madaxweyne ka ahaa Fulgencio Batista. kadib Fidel Castro ayaa jeelka loo taxaabay. sanadkii 1953 ayuu Fidel Castro iyo 100 dagaalyahan ay weerar ku qaadeen magaalo ku taala Cuba, iyagoo uu damacoodu ahaa in ay hub badan furtaan, balse iska caabin kaga timid ciidamadii Cuba ayaa markii dambe cagta la mariyay Fidel Castro iyo xulafadiisii. mar kale ayuuna gacanta dawladda ku soo dhacay, waxaana loo taxaabay jeelka ilaa markii dambe loo masaafiriyay jeel ku yaala dalka Mexico. sanadkii 1955 ayuu dalka Mexico xabsigii ku yaalay ka sameeyay koox kacaan ah oo uu horkacay Ernesto Che Guevara. sanadkii 1957 waxa uu soo qaaday weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa, kuwaas oo uu uga soo horjeeday xukuumaddii madaxweyne Fulgencio Batista. isla sanadkii 1957 ayuu dalka Cuba inqilaabay kadib markii uu caasimadda Havana la soo galay 82 dagaalyahan, waxaana la shaqaynayay koox saraakiil sarsare ah oo ka tirsanaa ciidankii Cuba. waxaana lagu tilmaamaa in uu ahaa inqilaab aan dhiig ku daadan. kadib maxaa dhacay? Fidel Castro waxa uu noqday shakhsi daacad u ah shuuciyadda iyo hanti wadaagga ee uu saldhigay Karl Marx. dawladda uu soo dhisay Castro waxa ay noqotay mid si buuxda u dabaqda mabaadi'da hanti wadaagga. dawladdu waxa ay la wareegtay ganacsiyadii iyo beerihii ay lahaayeen dadkii Amerikaanka ahaa. sidoo kale waxa ay si daran u caburisay saxaafadda iyo xorriyatul qowlka. siyaasiyiintii dawladda ka soo horjeeday kuwana xabsi ayaa lagu guray, halka qaarkii kale dil lagu fuliyay. dad badan oo reer Cuba ayaa waddanka isaga qaxay, waxayna badankood u firxadeen Mareykanka.
sannadii 1960kii ayuu Maraykanku cunaqabatayn ku soo rogay Cuba. isla sanadkii 1960kii Fidel Castro waxa uu la kulmay madaxweynihii midowgii Sofiyeetka ee xilliga. La amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano. intaasi kadib wuxuu xidhiidh dhow la yeeshay midowgii Sofiyeetka. sanadkii 1961 ayuu Fidel Castro si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu shuuciyadda aaminsan yahay. kadib Maraykanku waxa uu qorsheeyay shirqooladii Bay of Beaches. dowladda Maraykanku marar badan waxa ay isku dayday in ay khaarijiso Fidel Castro. isku dayada waxaa ka mid ahaa taxano shirqoolo ah. shirqooladan waxaa dejiyey madaxweynihii Maraykanka xilliga John Kennedy sanadkii 1961, balse 2 sano kadib 1963 ayaa toogasho lagu dilay John Kennedy. ilaa haddana aan la haynin sababta dhabta ah ee ka dambaysa dilkii madaxweynihii Maraykanka ee xilliga. Soomaalidu waxa ay tidhaahdaa sirmaqabe sabab iyo u celisha, mid kalena way jirtaa god sireed ha qodin, haddii aad qodidna ha dheerayn, ku dhici doontida ileen ma ogide. intii ay socdeen weeraradii qarsoodiga ahaa 1500 oo Kuubaan Maraykanka qaxootinimo ku yimid ayay tababartay hay'adda sirdoonka dibadda Maraykanka ee CIA. markii uu tababarka u soo dhamaaday 1500 ee qof ayaa koox loo soo diray si tartiib ahna waxa ay gudaha u soo galeen dalka Cuba, waxaana la soo faray dhammaantood in ay qaarijiyaan Fidel Castro. balse basaasiintan dilaaga ah ee uu Maraykanku soo diray waxa ka war helay G2 oo ah hay'adda sirdoonka dalka Cuba. 1500 waxa ay noqdeen wax la laayay iyo wax gacanta lagu dhigay, sidaasna waxa looga adkaaday Maraykanka. waxaana soo shaac baxday awoodii qarsooneed ee Fidel Castro. kadib weeraradii Bay of Beaches, Castro waxa uu midowgii Sofiyeetka u ogolaaday in Cuba ay keenaan madaxyada nuclear-ka. arrintani waxa ay abuurtay xiisad qaraar oo u dhaxaysa Sofiyeetka iyo Maraykanka, waxa ayna indhihii caalamka oo dhan u jeesteen una diyaar garoobeen in uu dhacayo dagaal saddexaad ee dunida. xaaladuna aad ay u xumaatay markii uu midowgii Sofiyeetka arkay in ay xiisadani abuurayso dagaal saddexaad ee dunida. uu go'aansaday in uu Cuba kala baxo madaxyadii nuclear-ka ahaa. Maraykankuna waxa uu yareeyay dhaqdhaqaaqyadii badnaa ee uu ka waday Cuba. sanadihii 1965 ilaa 1979 Fidel Castro waxa uu ku mashquulsanaa sidii uu shuuciyadda ugu fidin lahaa dalal badan oo ka tirsan qaaradda Afrika. sanadkii 1987 ayuu Fidel Castro heshiis dhinaca socdaalka ah la saxiixday Maraykanka. siyaasaddiisii dibadda sanadkii 1998 qaramada midoobay ayaa cunaqabatayntii ka qaaday dalka Cuba. sanadkii 2000 dalka Cuba waxa uu galay hoos u dhac dhaqaale, waxa uuna Fidel Castro xidhiidh la yeeshay dalka Venezuela, waxayna kala saxiixdeen heshiis dhinaca dhaqaalaha ah. sanadihii 2004 ilaa 2006 ayuu dalka Venezuela siiyey Cuba 53,090 fuusto oo shidaal ah. taasi beddelkeeda Cuba ayaa bixisay 40,000 ilaa 20,000 oo dawooyin caafimaad ah. arrintani waxa ay Fidel Castro ka caawisay in warshadaha dalkiisu ay helaan shidaal, ayna kordhiyaan oo kor u qaadaan awoodda wax soo saarka ee dalka. sanadihii 2006 ilaa 2008 ayuu Fidel Castro wareejiyey xilal badan oo uu hayay, sida madaxweynaha golaha qaranka iyo guddoomiyaha golaha wasiirada, xogayaha koowaad ee xisbiga shuuciga, taliyaha guud ee ciidanka. waxa uuna dhammaantood ku wareejiyey walaalkiis Raul Castro. sababta ayaa lagu sheegay in uu hayo xanuun weyne oona ka hayo caloosha iyo mindhiciraha, mana awoodi karin in uu xilkan sii hayo. dabayaaqadii 2008 ayuu Fidel Castro noqday howlgab, waxa uuna galay hosbitaal. sanadkii 2010 ayay ahayd markii ugu horreysay ee muuqiisa la arkay, waxa uuna ka soo muuqday telefishinka qaranka ee dalkiisa Cuba. sanadkii 2011 ayuu si rasmi ah iskaga casilay hogaamiyihii xisbiga shuuciga, waxaana qabtay isla walaalkii Raul Castro. ugu dambayn 25 November 2016 ayuu geeriyooday. waxa uu caan ku ahaa khudbadaha dhaadheer, iyada oo mid ka mid ah khudbooyinkiisa ay socotay 7 saacadood oo kaamil ah. sidoo kale waxaa la sheegaa in intii uu noolaa uu la seexday
in ka badan 35,000 oo haween ah. waxaa kale oo taariikhda ugu jirta in markii midowgii Soviet ay burbureen uu dalkiisa la kulmay dhaqaale xumo aad u baahsan, balse ugu dambeyntii uu ka soo kabtay oo uu soo celiyey dhaqaalihii waddanka. Fidel Castro waxa uu dalkiisa gaarsiiyey intii uu xukunka hayay in uu helo caafimaad bilaash ah. waraahiyadiisii waxaa ka mid ahaa waxaan cabaa sigaar Maraykanka lagu sameeyey, waxaana ku gubaa taraq lagu sameeyey Kuuba. halkaas waxaad ka arki kartaa nacaybkii faraha badnaa ee uu u qabay Maraykanka iyo sida uu u diiday in uu maamulo dalkiisa. waxaa taariikhda ugu qoran in intii uu noolaa Fidel Castro uu ka badbaaday 638 shirqool oo la rabay in dhammaantood lagu dilo. waxa uuna ka yidhi haddii ay jiri lahayd Olombikada in lagu soo daro sida shirqoollada looga badbaado, waxa aan aruursan lahaa bilado. Soomaaliya maxay ku xasuusan doontaa Fidel Castro? waxa ay ku xasuusan doontaa gacantii uu u fidiyey Ethiopia dagaalkii 77. Kuuba kaliya ma ahayn ee waxaa kula jiray Maraykanka iyo Ruushka. mawduuceena xiga waa maskaxdii ka dambeysay inay guulaysato. fikradihii uu aaminsanaa Fidel Castro halgamaagii Latin America iyo qaybo ka mid ah Afrika. magaciisu waa Ernesto Che Guevara. fadlan asxaabtada la wadaag muuqaalkan si aan halkan ugu wada midowno dhammaanteen. magacaygu waa Arfin. waad mahadsan tahay.